this is Giirebuytech from Giirebuytechconsultit IT. Cashirkan waa cashirkeeni noo socdo oo ahaa learning how to use window Powershell command ISE. Cashirkan waa cashirkii 13aad. Marka ugu horeyso waxaan ka hadlaynaa cashirka 13aad command kale oo asagana muhiim ah, command-ka oo badan ku siinayo. Marka halkaas window-ga tagaya Powershell-ka oo ifuna tagaya halkaas si la soo ku taabgareynaya. Cashirkan wuxuu ku saabsan yahay maanta waxa waaye get command weeyaan. Get command waa command kale oo muhiim ah. Inta aan leeyahay waa aragtaa get command function-ka ama command-ka oo ku siinayo waa aragtaan. Halkan waa page-ka labaad weeyaan. Waxaan tegaynaa page-ka koowaad aan tegaynaa function-ka get command uu leeyahay. Haddaan aragno kana waa page-ka koowaad weeyaan. Haddaan ku sii dheeraano kor aan tago halkaas waxaan ku qornay get command aan ku qornay. Get command-ka function-ada uu leeyahay waa kuwana waa aragtaa. Haddii aan fulaarta haddana hoos soo jiidno waxaan rabnaa command kale inaan taabano oo la yidhaahdo waxaan rabaa inaan taabto get /command aan leeyahay. markaan dhaho waxa la yidhaahdo waxaan samaynayaa pipe waxa la yidhaahdo aan samaynayaa oo waxaa baalka calaamadda u taagan space aan leeyahay more aan leeyahay asagana sidoo kale aragtaa wuxuu isiinayaa qaybooyin kale uu isiinayaa oo ka duwan oo different code ama different command uu ku siinayaa. ku dheeraa maayo cashirkaan marka intaan haddana waxaan halkaas sii leeyahay hoos ka tago waxaan leeyahay si la soo ku taabgareynayo soo kale igu noqdo. waxaan rabaa inaan dhaho get cashirka hore ka soo hadlay get help aan halkaa ku taabgareynaya haddana get command aan leeyahay. markaan dhaho get command waxaan leeyahay /example aan leeyahay asagana waa tusinayaa intaan taabanayaa. markaan aan taabto enter aan dhaho get help get command exam markaan dhaho koraan tegaynaa wuxuuna siinaya waxaa ka mid ah hadda tan oo kale get command type command let uu ku siinaya asagana sidoo kale get command waa aragtaa get command command type let waa aragtaa waxyaalo badan oo ku siinaya waa aragtaa get command get child item sidoo kale asagana uu ku siinaya waa aragtaa $sign command let $sign ps driver sidoo kale uu ku siinayaa. hoos haddaan ku socno waxaan rabaa oo ugu dambeysiinayaa halkaan aan leeyahay waxaan ku soo qaadanayaa get command aan leeyahay markaan dhaho /type aan dhahayaa space aan siinayaa waxaan leeyahay command letkaan aan taabanaya asaa ku siinayo taabanaya intaan aan leeyahay. sidoo kale asagana wuxuu ku tusinayaa command letka oo command-ka dhan uu ku tusinayaa. haddaan kor u socdo waxaan halkaa ku taabgeliyey arkaysaan hoos haddaan falaarta u wado waa aragtaan hoosaan u taabtay get command type haddana dhahay haddana waxaan dhahay command ledaan dhahay waa aragtaa wuxuu isiiyey. ku dheeraa maayo haddana waxaan leeyahay halkaas inter aan leeyahay inter markaan dhaho halkaas si la isku garaacaya waxaan ku tusin karaa kood kale oo ku sii muhiimsan oo aan ka soo hadlay halkaas aan leeyahay get help aan leeyahay /command aan leeyahay command markaan dhaho waxaan leeyahay /show window aan leeyahay. labada xaraf ugu horey haddaan garaaco sida mar walba aan ka hadlo waa arkaysaa asna wuxuu tusinayaa window kale oo laga samayn karo syntax wax loo yaqaan. haddaan sii weyneeyo waa aragtaa halka haddaan dhaho all aan ku taabgareeyo waxa all oo dhan ayaa yellow ama highlight gareysmaayo waa aragtaa. marka cashirkan waa cashirkii ugu 13aad weeyaan. waa cashirkeenii oo 13aad oo noo socday. cashirkan haddaan la socotay koodka waa kood kale waa ka faa'iideyso. haddaa cashiradan ama galaaskan aan ku cusub tahay subscribe-ka noo saar
like taabo comment ka bixi waxaan isku arki doonaa adoo raali ah cashirkeena dambe